السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرين جنال كمركة للسود واضح آدي هذا ومهتنتين مانتا وتلادو وانا لبي طبان كبيشة سيديداد أغسطس سنة كاللبادة كون يشان يلباتنك muuqaalkan waxaan rabaa inaan idin wadaago dad badan oo reer Minnesota ayaa ila soo xiriiriyay maxay ay real ID-gi ayaa ka soo dahay maxay tahay sababta real ID-gi ay dadku ay codsadeen uu uga soo dahayo gobolka Minnesota sababahaasi ayaan doonayaa inaan idin la wadaago marka la barbar dhigo gobolada dariska la ah Minnesota oo iyagu si fudud ka helaya maxay tahay sababta reer Minnesota uga soo dahayo magaalada St. Paul oo kooxaha hackers ay jabsadeen maxay tahay xogta ay online-ka ay soo galiyeen madax furashada ay weydiisteen maamulka degmada St. Paul sidoo kalena waxaan rabaa inaan idin la wadaago in shaqaalihii u shaqeynayay St. Paul idil ayaa password-koodii la bedelayaa internetka ilaa hadda meelaha qaar waa uu ka maqan yahay arintaasi oo hadda baaritaankeeda FBI-da iyo wasaaradda amniga gudaha ay ku howlan yihiin kooxdaasi dhacday muxuu ka yiri maayarka St. Paul magacooda iyo sidoo kalena in waxyaabaha xogta ah oo ay qaateen ilaa iyo hadda ayaan idin la wadaagi doonaa arrimahaasi balse marka hore soo dhawaada waxaan ognahay codsashada real ID-ga in dad fara badan gobolada Mareykanka guud ahaan ay ka codsanayeen maadaama waqtiga kama dambaysta ah oo la qaadan karay real ID-ga ay ahayd 7 bishii shanaad ee May ee sanadkan 2025 real ID-ga sababta loo bedelay iyo hore ayaan uga soo sheekayay qofka inuusan hadii wadanka gudihiisa uu u safrayo hadii ID-gan cusub ee real ID-ga uu san wadan ay noqonayso in baasaboorkiisa uu hore u soo qaato sidaas darteed ayaa marka hadda waxa ay dawladdu leedahay inta badan dadku waa ay dalbadeen laakiin gobolka Minnesota waxa ka taagan dhibaato ah in uu soo daahayo real ID-ga ama laysinkii uu qofka waqtigii loogu talagalay uusan u imaaneyn dadka waraaqihii la siiyay oo cab ku sugta ahaa oo 3 bilood ama 2 bilood ama bilka ahaa waa ay ka dhaceen dad fara badan ay soo weydiinayeen marka cilmiga sababta maxay tahay marka balbaaritaan ayaan ku sameeyay waxaan ogaaday sababtu inay tahay horta dadka codsaday inay aad u fara badan yihiin shaqaalaha application-ka real ID-ga process gareynayna aad ay u yar yihiin waa 24 qof oo kaliya sidaas darteed ayaa hadda waxa gobolka Minnesota uu leeyahay waxaan kordhinaynaa dadka soo saaraya ama process gareynaya application-nada real ID-ga hadda markaan eegno bishii January laga soo bilaabo ilaa iyo June dadka codsaday real ID ee gobolka Minnesota ku nool 1 milyan ayay ka badan yihiin January oo kale 48400 oo qof ayaa codsatay February 48398 ayaa codsatay March 70700 iyo 70 qof ayaa codsatay April waxa codsatay 101937 May waxa codsatay 76000 June 48880 qof ayaa codsatay marka sidaasi ay u badan yihiin dadka codsaday 1 milyan ay ka badan yihiin shaqaalaha soo saarayana waa 24 qof oo kaliya application-nada process gareynaya maalintii waxay leeyihiin application-nada aan helayno waxay u dhaxeeyaan 1500 ilaa iyo 1700 oo application ah oo dadku ay soo dalbanayaan marka hadii ay waraaqdii ay ka dhacday lagu soo siiyay hadii aad gaari wadayso inta badan dadku gawaari ay wataan ku laabo BMV-da mar kale waraaq kale ka soo qaado hadii kale waraaqdaas oo ka dhacsan haduu boolisku istaajiyo macnaheedu waxay tahay inaadan wax laysin ah aadan wadan oo cadeynaya inaad laysin leedahay arintaasina waxay kugu mutaysan kartaa maxkamad iyo ganaax iyo sidoo kale in lagu xiro maadaama adigoon laysin wadan aad gaari ka haynaysa marka dadka ay ka dhaceen waraaqahooda oo gawaarida wada welina laysinkii uusan soo gaarin real ID-gii fadlan ku laabta BMV-da mar kale waraaqo kale ka soo qaata wax cadeynaya in laysinkaadi uu ku maqan yahay isla markaana weli aadan helin haddaba marka la barbar dhigo marka gobolada dariska la ah Minnesota gobolada North Dakota iyo South Dakota qofku marka uu dalbadaba goobta ayaa lagu siinaya soo laabo iyo waa lagu soo diraya maba jirtaba hadda Iowa oo kale hal bil ayuu qaataa qofku in laysinka marka uu dalbada loo soo diro Wisconsin oo kale 10 maalmood oo maalmo shaqo ah ayuu qaataa marka sida muuqata Minnesota waa ay ka dambaysaa gobolada kale ee dariska la ah sababtuna waxay tahay shaqaalaha process gareynaya ayaa 24 qof oo kaliya maadaama real ID-gan uu ka bedelan yahay kii hore oo waxyaabo fara badan lagu darayo waxay tahay in uu soo daahayo qofku xilliga uu ku helayo real ID-ga arintaasi halkaas aan ka gudbo waxaan filayaa dadka reer Minnesota inaad cilada ogaateen oo laysinkaadi ama real ID-gaadi
uu kaaga soo daahayo. Magaalada St Paul oo Soomaali fara badan ay degan tahay ayaa gabi ahaanba xogteedii la jabsaday oo kooxaha hackers ah oo magacooda lagu sheegay Interlock ay jabsadeen 25kii bishii July ee la soo dhaafay. Hadda muddo 3 toddobaad magaalada St Paul internetkeeda ma shaqeynayo, wax shaqo ahna kama socdaan. Gabi ahaanba xogtoodii waa la jabsaday. Sidaas darteed ayaa waxa dhacday isla markiiba in maayarka magaalada St Paul ninka la yiraahdo Melvin Carter waxa uu ku wargeliyay FBI-da, ciidamada National Guard-ka, wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay'adda dowladda federaalka u qaabilsan dhinaca badqabka internetka oo la yiraahdo Federal Internet Cyber Security Administration oo siisa loo soo gaabiyo. Sidaas darteed ayaa waxa muddo 3 toddobaad ay magaalada St Paul ay ku howlaneed sidii xogteedii ay u difaacan lahayd isla markaana waxyaabaha ka maqan ay dib ugu soo ceshan lahayd. Kooxahan hackerska ah waxay ka jiraan inta badan Shiinaha, Ruushka, North Korea, meelo fara badan India ayay ka jiraan. Marka waa kooxo isku xiran. Sidaas darteed waxa ay sanadihii u dambeeyay wadeen inay jabsadaan shirkadaha waaweyn ee Mareykanka, isbitaalada iyo sidoo kale magaalooyinka Mareykanka ka tirsan. Ma ahan magaaladii ugu horeysay St Paul oo la jabsado. Horey waxa loo soo jabsaday Baltimore, New Orleans, San Francisco, magaalooyin fara badan ayaa xogtooda la jabsaday. Marka waxaa maayarka St Paul uu sheegay in inta badan xogtii dadka degan magaalada St Paul aysan gacanta ku dhigin kooxahan, laakiin waxa uu sheegay in systemkooda loo soo dhacay ayna damaanad qaadi karin in xogta ay difaaci karaan. Sidaa darteed 25kii markii loo soo dhacay systemyada kombiyuutarada dhan ay ku shaqeyso St Paul waa la damiyay 26kii bisha. Ilaa iyo hadda waxaa la wadaa softwareki in la bedelo 3500 oo shaqaalaha magaalada St Paul ayaa waxa ay maalmihii u dambeeyay ay wadeen in goob auditoriumka la geeyo passwordkoodana ay bedelaan, kuwa kombiyuutarada ku shaqeynayay iyo kuwa mobilada haystay. 80 qof ayaa halkii marba tagaysa 80 kombiyuutar ayaa la dhigay. Muddo 30 daqiiqahna passwordka ayay bedelayeen. Shir jaraa'id oo shalay gelinkii dambe uu qabtay maayarka magaalada St Paul Melvin Carter waxa uu sheegay in ilaa iyo hadda in ka badan 2000 passwordkooda la bedelay, inta ka harsanna maalmaha soo socda la bedeli doono. Howlgalkan waxaa loogu magac daray Operation Secure St Paul ayaa loogu magac daray. Waxaana sidoo kale ka qayb qaadanaya Jamie West-Claason oo iyadu ah madaxa dhinaca teknolojiyadda ee magaalada St Paul. Marka waxa uu sheegay shirka jaraa'id uu shalay qabtay, waxaan ognahay magaalo kasta waxaa hoos yimaada 911ka marka la waco. Hadda uu shaqeynaya St Paul 911ka markii la waco uu shaqeynaya, laakiin waxaa sidoo kale hoos yimaada booliska, kooxaha nadaafadda, dabdamiska, sidoo kale xogta dadka degan oo 300,000 ka badan magaalada St Paul. qof kasta magaciisa, adresskiisa, dhalashadiisa, social securitykiisa, waxyaabahaasi oo dal xogtaasi ayaa magaaladu ay haysaa. Marka waxa uu sheegay markii shirka jaraa'id uu shalay qabtay maayarka magaalada St Paul in kooxahan uu diiday afkiisa inuu ka sheego magacooda, laakiin wariyaashu markii ay weydiiyeen oo yiraahdeen Interlock miya, waxa uu yiri waa kooxahaasi kooxaha xogta qaar kamida online ka soo geliyay. Marka waxa uu sheegay in magdhow ay weydiisteen, xogtiina gacanta ayaan ku haynaa, lacagna siiya. Marka waan diidnay. Markii aan diidnay waxa uu yiri 43 gigabyte ayay waxay soo geliyeen online-ka. Kooxahan waxay sameeyaan xogta markay dhacaan waxay soo wacaan dadka ay ka dhaceen ama shirkada ama hospitaal ama magaalaha, waxay yiraahdaan lacag intaas ayaan u baahnaa. Waana diiday sidoo kale lacagta inta ay leegtahay ay weydiisteen kooxahan hackerska in uu sheego. Marka waxa uu yiri waan diidnay lacagtii inaan bixino madax furashada ahayd. Sidaas darteed ayay waxay sameeyeen in online-ka xogtii ay soo geliyeen. Marka kooxahan waxay sameeyeen haddii aad diido xogtaada online-ka ayay soo gelinayaan oo waa iibsanayaan. Mararka qaarna adigoo magdhowgii siiyey ayaa laga yaabaa haddana xogtii inay iibsadaan. sidaas ayaa marka dad fara badan xogtooda ay dark webka ay ku gashaa isla markaana lagu iibsadaa. marka waxa uu xaqiijiyay inay diideen inay madax furasho buuxiyaan. marka wuxuu yiri 43 gigabyte oo kamid ah xogtii qaybta la yiraahdo Parks and Recreation-ka ay online ka soo geliyeen, laakiin waxa uu sheegay in xogta magaalada St Paul ay hayaan ay tahay 153 terabytes. marka la barbar dhigo inta ay gacanta ay ku dhigeen waa in aad u yar, laakiin waxa uu sheegay maadaama systemka loo soo dhacay inay go'aansadeen in ay damiyaan gabi ahaanba systemka isla markaana softwarekooda ay update ku sameeyaan. ilaa iyo haddana weli waa ay socotaa toddobaadkii saddexaad magaalada St Paul. internetka meelaha qaar ma shaqeynaya, xitaa korontada iyo biyaha iyo haddii aad bixinayso ma jirto meel online-kii aad ku bixin jirto, internetkii ma shaqeynayo, meelaha librariyada ma shaqeynayo. inta badan sidii magaalada St Paul internetkeedii
waa uu maqan yahay gaar ahaan xarumaha ay magaalada St Paul ay ku shaqeyso marka waxa uu xaqiijiyay in hadda meel wanaagsan arintaasi ay u mareyso baaritaankan oo socdo FBI-da iyo wasaaradda amniga gudaha iyo hay'adda dhinaca badqabka internetka dowladda federaalka u qaabilsan ee siisa arintaasi ay baaritaan ay ku wadaan laakiin waxa uu xaqiijiyay in inta badan xogta dadka deegaanka ay server gooni ah ku jirtay isla markaana dadka degan magaalada St Paul xogtooda aan la dhicin marka arintaasi ayaa jirta reer St Paul waxa jirta in xogtiinii loo dhacay oo la jabsaday marka maayarka magaalada St Paul oo shalay gelinkii damashirka jaraa'id markuu qabanayay arrimahaasi ka hadlayay ayaa waxa uu yiri Over the past 2 weeks, our city has responded to a cybersecurity incident that has demanded constant attention from our IT teams, department leaders, and partners at every level of government. We detected this intrusion on July 25th and began working immediately with the FBI, the Minnesota National Guard, the Department of Homeland Security, and other cybersecurity experts to investigate, limit damage, and protect the people and services that keep St. Paul running. 3 days before we discovered the breach, the Federal Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, CISA, published a public advisory about the exact criminal group responsible for this attack. The advisory describes a sophisticated, money-driven organization known for stealing and selling massive volumes of sensitive information from large corporations, hospitals, and governments, operations that have resulted in stolen data measured in the terabytes. Today, that group posted online what they allege to be approximately 43 gigabytes of stolen data from City of St. Paul systems. The City of St. Paul hosts more than 153 terabytes of data on our servers. In other breaches by this group, they have stolen and sold terabytes, thousands of gigabytes, from a single victim. The files they posted appear to come largely from a single shared network drive used by our Parks and Recreations Department, a place where individual employees have stored their own personal files over time. These are not core city systems like payroll, permitting, or licensing. The contents are varied and unsystematic. They could include everything from work documents, copies of IDs submitted for HR or travel, or even personal items like recipes. In other cases, this group has demanded ransoms and then sold data for profit. In this case, after we refused to pay the ransom, they chose to post the data publicly without trying to sell it. While the scope of what they published against us is far smaller than what they've accomplished elsewhere, the fact remains, someone was inside our systems. And once that happens, there's no way to guarantee that they could not have accessed more. ugu dambeyntiina Soomaalida Minnesota dadkii ku eedeysnaa lacagtii kiiskii Feeding Our Future oo markii hore 250 milyan la lunsaday lahay hadda 300 milyan kor u dhaaftay wali dadkii Soomaalida qaarkood ayaa dambigooda qiranaya shalay waxa dambigiisa qirtay nin la yiraahdo Guhad Xaashi Saciid ninkan laba dambi ayuu ku eedeysnaa oo wire fraud iyo sidoo kale money laundering shalay isniinteeda ayuu dambigiisa qirtay October ayaa la filayay in maxkamad la saaro waxaana uu iska lahaa urur la yiraahdo Advanced Youth Athletic Development waxaana uu sheeganayay in 5,000 oo caruur ah maalin kasta cunto uu siinayo uu quudinayo laakiin waxa la ogaaday in arintaasi ay been tahay marka waxa in ka badan 50 qof ayaa hadda dambigooda qirtay oo Soomaali u badan kiiskaasi Feeding Our Future marka waxa jira dad yar oo iyagu hadda maxkamad sugiyaal ah waxaana uu kamid ahaa dadka la filayay maxkamadooda bisha October inay bilaabato aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkeen cilmi waro idin la sidaa iyo nabadgelyo